tanka bishan Febraayo waa maalin kale oo aan wada mudaharaadayno shacabka Soomaaliyeed aan wakiil uga nahay dadkeenan Muqdisho ku dhaqan marka waxaan rabnaa in la soo baxo barkulankeenuna waa sida la sheegay daljirka dahsoon iyo intaas soo dheero wada kasta iyo jid kasta inaan ku soo baxno irid kastana aan ka mudaharaadno ayaa ballanteen ay tahay maxaan saas u yeelaynaa waxaan saas u yeelaynaa madaxweynaha xilkiisa dhamaaday yaa wuxuu rabaa Soomaaliya inuu kala dooransiiyo dagaal sokeeye iyo dictatorship aan kaligay taliyo ama dagaal sokeeye in gelinayo labadaba ina isku awood isku aqli isku maskax iyo isku maal ku diinaa rabnaa oon dhahno kala talisna ma jiro dagaal sokeeyana ma ogolin see ku dhici kartaa marka waa mahadsan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo mowqifkaas cadeeyay oo damaca farmaajo cadeeyay sidii hoose ula sheekaystay iyo sidii kore intaba waxa uu damacsan yahay diidayna inay qayb ka noqdaan ajandihii Soomaali lagu kala geynayo aad ay u mahadsan yihiin fariinta digniinta ay noo soo direena waa uga mahad celinaynaa annaga maxaan ka rabaa annaga waxaan ka rabaa inaan diidno inuu labadaasna kala dooransiiyo ayaga qaybtoodii way diideen annaga qaybteena waxa waa inaan ku diidno mudaharaadka hadalka dooda nabadda isku soo baxan ku diidayna oo leenahay maya taas annaga inaan ka gaabino marka ma aha wadada kale oo nagu jiidaayo ma ogolin waan ognahay dadka taageerayaasha oo dadka musharaxiinta halkan taagan taageerayaasha ah inay dareemayaan inaan ku gabad falayno oo u muuqano dad daciif ah oo wax iska celi karin oon iska dhigi karin daandaansiga oo dulmiga aanan iska saas laakiin arintu ma aha taas anaga uma socono waa midda la rabo in ku jiido shacabku inay ogaadaan waa midda aan ogolayn inaan ku wada jiidano oo na doonayo farmaajo inuu noo jiido annaga waxaan rabnaa nabadda iyo mudaharaadka iyo hadalka awoodiisa inaan wax ku bedelno adduunkana waa lagu bedelay waana jirtaa midda kale meesha ku jirtaa waxay tahay cid kale isku haleynayna ma jirto oo annaga aan ahayn la beel caalaman jirin waa nimanka u durbaantumaya farmaajo oo xilligiisii dhamaaday waxa aragtayna sameeyay cidda wali la shiraysa oo mas'uuliyad iyo sharciyad inuu leeyahay kula macaamilaysa waa beesha caalamka ma sugayno waxaana kale sugaynin dad aan islaanahay oo kale hadeerta inii maqan oo aqli iyo garaad inay yeeshaan ku soo baxaan hadda ma sugayno mana muuqato hadeertaan hadday imaato waa ilaahay mahadiis waxaan rabnaa marka inaan hoosta ka xariiqno 19 wixii dhacay Febraayo waa wax annaga aan ku dhaganahay ilaa meel la saarana meel loo dhaqaaqay aysan jirin doorasho iyo doorasho la'aan iyo horaha loo socdo iyaan loo soconin waxay ku xiran tahay 19 wixii dhacay habeenkeedii oo madaxweynayaasha gadaashii taagan la weeraray iyo maalintii inteena kale saa ogtiin jidkan anoo ku mudaharaadayno ku xabadiyay arintaas waa in meel la saaraa haday tahay golo amaan haday tahay beel caalam haday tahay Soomaali haday tahay gobollo haday tahay dawlad federaal waa in arintaas meel la saaraa ayadoo meel la saarin arin la isaga tilaabsan karo maaha ayadoo la mudaharaadi karin doorasho lama qaban karo waa inaan marka hore xaqiijinaa in la mudaharaadi karo si nabada markaan taas xaqiijino ee doorashadu ku xigtaa aleen doorashadu soo ololama soo campaign ma soo siyaasad ma soo dad la kulan ma hadaan dadka la kulmi karin oo la mudaharaadi karin oo si nabada loo soo bandhigi ra'yigaaga doorashada la galay maxay tahay tii Kim Un-jin ma dhigi jiray ninkii ka tali jiray koonfurta Kuuriyada waqooyi miyaa doorashada la galay mise midda afwarki waay anaga doorashada afwarki oo kale ma rabno doorasho waxaan rabnaa dadku ay tartamayaan xor yihiin tii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hotelkan subaxii ka tagay galabtii la doortay taasoo kala rabnaa anaga inay dhacdo marka waa inay dadku ogaadaan arintaas waxa kale oo rabnaa inaan ka digo Farmaajo waxa xalay fashilmay qorshayaashiisii ahaa doorasho maaweela oo been ah inuu nagu dul hayay oo waxba ka jirin xalay hadalkii madaxweyne Siciidin wuxuu fashiliyay doorasho been ah oo madadaala inay meesha ka socotay ajanda kale oo ciidan iyo xoog iyo dadka in la terrorize gareeyo
loo awood sheegtana uu dhinac socday farmaajo waa fashilmay qorshihiisii waa fashilmay wuxuu aadi doonaa qorshaha kale wuxuu isku dayi doonaa inuu komid gareeyo ama uu ku dhaco isqarxintii ama suusaydkii ugu dambeeyey oo ah inuu dadka mar kale soo weeraro madaxda meesha taagan inuu dadka ikhtiyaalo keensado inuu sida hadda la sheegay shabaabka la macaamilay shabaab soo isticmaalo waxaan u baahanahay dadka reer Muqdisho inay digtoonaadaan oo arintaas ay vigilant ama ay ka digtoonaadaan muxaawalada ugu dambeeyay ama isku dayga ugu dambeeyo oo isku qarxi doona farmaajo in loo digtoonaado oo jugta dhacday aan lagu shoogin ee markiiba dadka kici karo aan noqono arintaasna waa ka digaynaa waxaan mar kale ku celinaynaa 19 Febraayo wixii dhacay waa wax taagan oo xagga meel looga durka aysan jirin waxaan ka xunnahay qolada beesha caalamka sheeganaysa ee rabta inay iska dhiga tirto wixii 19 dhacay ay rabta inay moodo suuragal ma ah waa crime weyn waaye oo dalkan geli kartay dagaal sokeeye laakiin tanaasulka dadkan ay ku taagan tahay oo aan ku joognaa marka arintaas waa mowqif aan ku dhaganahay oo meel looga durka ay jirin waa mahadsanyihiin madaxweynayaasha jeediyay arintaas kashifay waxaan ka codsanaynaa kuwa farmaajo la joogo waxaan rabaa inaan meeshan uga baxo Donald Trump markuu xukunka Mareykanka qalday oo qarribay waxaa jira dad la yiraahdo enablers dad asaga u suura gelinaya saas inuu wax u xukumo farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suura gelinaha jiro farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suura gelinaha jiro waxaa kow ka ah ciidanka Italiyaashooda gudoomiyaha ka hadlay waa ku celinaya waan ognahay saraakiisha diiday amarka guraacan ee dadka in lagu weeraro lagu soo holgeliyo waa naqaana magacooda noo qoran waa noo lisgareysan yihiin kuwa yiri warqadii amarka isii waa hayna ayagani oo la sii waayay kuwa ka gadooday oo diidana waa hayna kuwa fuliyayna waa hayna waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada ciidamada ku dhex jirtay la adeegsanayo oo waxa xabadda oo gurida walaalkiis oo yahay ama raggii shalay dalka madaxdiisa ahay ama noqon doono oo yahay inuu arintaas ka digtoonaado ragga kale ee siyaasiyiinta waa is yaqaanaan ee farmaajo u suura gelinay inuu saan u dhaqmane fariina u diraynaa waxa la isku haysto waa dal masiirkiis waxa la isku haysto waa deegaan masiirkiis inaad damiir yeelatiin oo maanta wax ka badbaadisiin ayaan ku baaqaynaa waa maasantii